Korfeyn TV isha wararka warbixinada dhacdooyinka ogaan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Halkani waa Korfeyn TV daawadayaal meel soo joogteen kula wanaagsan. Xubintan ugu horeysa waxaan ku soo qaadanaynaa madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta oo kulan hordhac ku yeeshay magaalada Djibouti. iyadoo shirweynahan caadigan 38 madaxda dalalka xubnaha ka urur goboleedka IGAD oo doornimadii maanta oo xada ka furmay caasimadda dalka Djibouti ayaa waxaa feer socday shirar kala gaar ah oo u dhaxeeyay madax uu ka dhaxeeyo khilaaf iyo colaado. wasaarayaasha dalalka Suudaan iyo Itoobiya Cabdulla Xamdugi Abiy Ahmed waxay kulan qaas ah ku yeesheen hoteelka shirka ka socdo waana kulmikii labaad oo ay yeesheen muddo toddobaad ah. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo kulankaas kadib qoraal soo dhigay Twitterka waxa uu ku bilaamiyay inuu la kulmay dhigiisa Suudaan Cabdulla Xamdugi kana wada hadleen xiriirka labada dal iyadoo uu kulankaasi daba joog kulankii u dambeeyay ee ay labada hogaamiye ku yeesheen magaalada Addis Ababa isbuuca hore. dhinaca kale madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxay hal madal ku kulansiiyeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhigiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta. kulankaasi oo ay saxaafad dibad joog ka ahayd ayaa u muuqday mid hordhac oo ah kulan ay madaxda IGAD ku doonayaan in lagu xaliyo khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. dowladda federaalka waxay dhawaan xiriirka diblomaasi u jirtay Kenya oo ay ku eedeysay inay faragelin ku hayaan arrimaha daaqiliga ee Soomaaliya. sidoo kale waxa uu dhaqdhaqaaq ciidan ka jira xuduudka ay labada dal wadaagaan taasi oo sare u qaadi karta cabsida laga qabo inuu dagaal dhexmaro ciidamada lagu soo daabulayo ama lagu soo xoojinayo xuduudka labada dal. ra'iisul wasaaraha Itoobiya kulanka ay isagii madaxweynaha Djibouti ku kulansiiyeen Farmaajo Uhuru kadib waxa uu bartiis Twitter ka soo dhigay qoraal uu ku sheegay in xoojinta deganaanshaha gobolkeena ay saldhig u tahay iskaashiga iyo sii kordhaya iyo horumarka. waxaa kale oo uu tilmaamay inuu faraxsan yahay xilli ay hogaamiyaashu isugu yimaadeen miiska wareegsan kana wada xaajoonayaan arrimaha cadaadiska ku ah gobolka. si kastaba haatee madaxweyne Farmaajo Uhuru Kenyatta ayaan loogeen in ay kulan kale oo toos ah ay yeelan doonaan iyo in ay weli sii socon doonto dhexdhexaadintaasi uuna kusoo biiri doono ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan ahna gudoomiyaha xilligan ee ururka IGAD Cabdulla Xamdugi. daawadayaal xubinteena kale waxaan ku soo qaadanaynaa militariga Suudaan oo lagu xoojiyay deegaanada ku tirsan xuduudka Itoobiya xilli ay xiisad colaadeed ka dhexalsantay xuduudka u dhexeeya labadaas dal ayaa waxay ciidanka Suudaan dib uga qabsadeen maleeshiyada amxaarada kontaroolka deegaano cusub oo ku yaala xuduudka. qabsashadan ayaa kusoo beegantay xilli uu madaxa golaha haya talada dalkaasi Generaal Cabdifataax Al-Burhani oo 3 maalmood ku tagay jiidda hore ee dagaalka. Generaal Al-Burhani oo ciidanku la hadlay taliska dhexe ciidanka ku sugan gobolka Gadaref waxa uu shaaciyay inay dalkooda ka difaaci doonaan weerar kasta oo kaga yimaada Itoobiya. ilo military ayaa sheegaya in ciidamo aad u hubeysan oo ay ku jiraan ciidanka si degdeg ah u howlgala ee RSF loo yaqaan loo daabulay xuduudka bariga gobolka Al-Fashaqa oo ay la wadaagaan Itoobiya. warar aan la xaqiijin waxay sheegeen in military Suudaan iyo Itoobiya ay shalay jabdi ahayd ku dagaalameen xuduudka iyadoo qaar ka tirsan ciidanka Suudaan oo ku soo dhaawacmay dagaalkaasina loo soo gudbiyay isbitaalka guud ee Gadaref. militariga Itoobiya iyo maleeshiyada amxaarada ayaa la sheegay inay ka caroodeen ciidanka Suudaan ee loo soo daabulay deegaanka ku tirsan xuduudka. joogintaankooda waxaa dhabarjab ku noqday howlgal military ay laga fulin jiray gudaha Suudaan ee ka dhanka maleeshiyada kooxda TPLF. qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Itoobiya waxay ku eedeeyeen militariga Suudaan inay taageereen maleeshiyada Tigreega ee TPLF ee dagaal ka wada waqooyiga Itoobiya. dowladda Itoobiya waxaa la sheegay inay saxaafadda ka mamnuucday inay ka hadlaan colaadda u dhexeysa Itoobiya iyo Suudaan ee ka socda dhinaca xuduudka. December 15 ayuu dagaalkaas qarxay kadib markii ciidanka Itoobiya ay jidka u galeen askar Suudaaneys ah oo ilaalkaasi xuduudka waxaana halkaas lagu dilay sarkaal iyo 3 askari iyadoo lagu dhaawacay 27 kale. dhinaca kale wakaaladda wararka Suudaan Sunnah waxay Jimcihii sheegtay in shaqaalaha xilliyeedka Itoobiya bilaabeen inay yimaadaan barta laga gudbo ee Galabaad ee u dhexeeya labada xuduud. dowladda Suudaan waxay fiisaha dalkugalka siiyeen 100,000 oo shaqaale Itoobiyaan ah oo xilligan lagu jiro goosashada dalagga beeraha. dagaalka dhex qarxay Suudaan iyo Itoobiya waxa ku soo beeg maalmo kadib markii labada ra'iisul wasaare ay kulan ku yeesheen Addis Ababa iyagoo ku heshiiyay in kulan ay isugu yimaadaan guddiga farsamada ee labada dal ugu qaabilsan xuduudka
booqan ama khilaafkan ka dhex taagan labada wadan ayaa ku salaysan xuduudka, iyadoo xuduudka lagu murusan yahayna uu qeyb ka yahay xuduudka gudaha dalka Suudaan. waxayna labada dal heshiis gaareen ama heshiiska dhanka xuduudaha ay calaamadeen sanadka marka waa 1902 waana xilli aad iyo aad u fog marka loo eego taariikhda casriga ah. Gorfayn TV isha wararka warbixinada iyo dhacdooyinka ha moogaanin. Gorfayn TV isha wararka warbixinada iyo dhacdooyinka ha moogaanin.